madaxda dunida kuwa ugu ilaalada badan. Sida la wada og yahay, ma qof waliba oo madax ah waxa uu leeyahay ilaalo u gaar ah, waxa ayna ku xiran tahay mansabka iyo qiimeynta iyo awoodda ay dunida xilligaa ay ku leeyihiin, ayadoo loo eegayo muxaafad iyo mucaarad. Hase ahaatee, madaxda ilaaladooda ayaa kala duwan. Intaana fiidiyowga aan u gudagalin janalka loo laagare siduu dad badan u gaaro, sabskaraabkan hanaga ilaawin, dhanka facebookana follow noo dheh, nana soo raac Somali Media Action. Kim Jong-un waa madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi, waxaa lagu tiriyaa madaxweynaha ugu ilaalada badan dunida. Kim bannaan uma soo baxo ama dibad ma aado ilaa waxaa garab orda ilaaladiisa, kuwaasoo tiradooda aad u badan tahay. Sidoo kale waxaa lagu qaadaa baabuurta aan karin xabadda iyo miinooyinka. Sidoo kale Kim Jong-un waa madaxweynihii ugu horreeyay ilaaladiisa u tababara inay baabuurta garab ordaan. Waxaa kaloo halkaa aan ka marnay mootooyin gaaraya 1000 mooto. Kim Jong-un meesha uu fadhiisto waa la buufiyaa, ayadoo looga cabsanayo cayayaan iyo cadow kale halkaa inuu wax kale ku buufiyo. Sidoo kale Kim Jong-un waa madaxweynaha keliya aan la taaban karin korkiisa. Recep Tayyip Erdogan waa madaxweynaha Turkida, kaasoo ka soo muuqday kaalinta labaad ee madaxweynayaasha ugu ilaalada badan dunida, ayada oo loo fiirinayo sanawaadkii dambe halka uu ka joogay mansabka dunida iyo siyaasadda dowladda Turkida. Sidoo kale madaxweynahan ilaaladiisu aad ayay u tiro badan yihiin. Marka uu baxayo, baabuur lagu qiyaasay 600 baabuur ayaa garab orda. Sidoo kale mootooyinka kama marna. Dhanka hawadana diyaarada ayaa la kiciyaa, waxaana wasaaradda gaashaandhigga ay samaysaa geedaha korkooda inay kaamirooyin ku xirto, taasoo laga haga wasaaradda gaashaandhigga Turkida. Madaxweynahan ilaaladiisu dhowr mar ayay arbushaad ka sameeyeen meelaha uu booqashada ku taga Erdogan, sida Washington qisadii ka dhacday, taasoo ilaalada Erdogan ay isku dhaceen ciidamada Mareykanka qaar ka mid ah. Abe waa ra'iisul wasaaraha Japan, waxa uu ka mid yahay madaxda dunida kuwa ugu ilaalada adag. Shinzo Abe madaxda kale waxa uu kaga duwan yahay baabuurta Shinzo Abe raacda marka uu baxayo ama gudaha ama dibadda waxa ay gaarayaan 1500 baabuur. Ilaalada ayaa sameeyaan inay luqunta ka soo dhiibtaan baabuurta si aysan iskugu dhicin. Mararka qaar shil ayaa ka dhasha Shinzo Abe ilaaladiisa, isla baabuurtiisa ayaa isku dhacdo. Marar badan ayayna arrintaas soo laabatay. Shinzo Abe waa siyaasiga koowaad ee reer Japan, kaasoo aad loo ilaaliyo. Siyaasiyiintii hore ee reer Japan waa uu ka bedelan yahay maadaama Elizabeth boqoradda Ingiriiska, ayadoo ay yar tahay dhaqdhaqaaqeeda meel aadista inuu aad u yaryahay. Haddana marka ay rabto inay baxdo, waxaa ku baxo lacag aad u tiro badan sugista amnigeeda. Sidoo kale waxaa aad loo ilaaliyaa guriga ay ka degan tahay London ee Buckingham House. Sidoo kale boqoradda ayaa ilaaladeeda qaaska iyo ilaalo askar aad u tiro badan ka haysata markay meel aadayso. Dhanka kale, baabuur aad u gaashaaman iyo mootooyin ayaa boqoradda lagu ilaaliyay. Dhanka sare hawadana waxaa dul heehaabaya helikobtaro lagu sugayo boqoradda amnigeeda. Waxaa intaan dheer boqoraddan inay leedahay 100 musqul, kuwaasoo laga ilaalinayo inay cayayaan boqoraddan ay cunaan ayna u dhimato arrintaa. Alpha Conde waa madaxweynaha Ghana, waa madaxweynihii ugu horreeyay qaaradda Afrika ee ka soo muuqda kaalmaha hore ee madaxweynayaasha ugu ilaaliska badan dunida. Alpha Conde marka uu dhaqaaqayo waxaa raaca ilaaladiisa qaaska, kuwaasoo ku gaashaaman baabuurta aan xabadda karin iyo mootooyinka. Sidoo kale ilaalada ayaa sameeya baabuurta inay madaxa ka soo dhiibtaan ama ay gees ay ka qabsadaan baabuurka say ula socdaan dhaqdhaqaaq waliba amniga madaxweynaha wax u dhimi karaa. Alpha Conde ayaa aad loo ilaaliyaa, waxa uuna ka mid yahay madaxda qaaradda Afrika kuwa ugu horreeya oo amnigooda aad loo sugo. Donald Trump waa madaxweynihii hore ee Mareykanka, kaasoo ay soo wajaheen culeysyo badan oo siyaasadeed dal iyo dibad. Waxa uu samaystay ilaalo aad u tababaran, kuwaasoo ka qayb qaata sugidda amnigiisa iyo qoyskiisa, una raaca inta badanaa meelaha uu booqashooyinka ku tagayo dal iyo dibad. Waxaa soo raaca ilaalo aad u hubaysan oo dhar cad ah, waxaana meesha ka marneen baabuurta xabadaha aan karin.
sidoo kale waxaa aad loo ilaaliyaa burjum Trump Tower. sidoo kale Donald Trump ayaa madaxda kale ka duwan in mararka qaar soo sheegin uu si lama filaan ku baxo, taasoo keenaysa ilaalada had iyo jeer in ay heegan ku jiraan. Vladimir Putin waa madaxweynaha Ruushka, waxa uu ka mid yahay madaxda dunida kuwa aadka loo ilaaliyo. Vladimir Putin waa nin korneyl kaasoo soo maray marxaladaha kala duwan ee ciidannimo. Mr. Putin ilaaladiisa khaaska waxay gaarayaan 5,000 kuwaasoo qabto shaqooyin kala duwan. Kooxda u xil saaran sugidda amniga madaxweynaha waxaa loo qaybiyaa 7 qaybood. intooda badanaa waa dhar cad. waxay xoogga saaraan sugidda amniga guriga madaxweynaha. sidoo kale waxaa jira qolooyin sirdoon kuwaasoo shaqadooda tahay in ay ka jawaabaan hanjabaad weliba soo gaarta madaxweynaha. sidoo kale waxaa ka qayb qaata amniga madaxweynaha ciidamada Ruushka kuwooda tababarka militari qaba. Xi Jinping waa madaxweynaha China, waxa uu ka mid yahay madaxda dunida kuwa aadka loo ilaaliyo. Mr. Xi Jinping ilaaladiisa khaaska waxay gaarayaan 8,000 oo ilaalo waxa ay qabtaan shaqooyin kala duwan. waxaa waajib qof waliba oo ka mid noqonaya ilaalada madaxweynaha in uu leeyahay 6 sano oo xirfad shaqo amni oo isugu jirta mid siyaasadeed iyo mid amni. waa in uu adeegsan karaa hubka noocyadiisa kala duwan oo ku ridi karaa gacantiisa midig iyo tan bidix. hadduusan qofka shuruudaha buuxinin ma noqon karo ilaalada Xi Jinping madaxweynaha China. Xasan Watara waa madaxweynaha Ivory Coast, waxa uu ka mid yahay madaxweynayaasha dunida aadka loo ilaaliyo. sidoo kale waa ninkii labaad oo qaaradda Afrika ka soo jeeda oo ka soo muuqda liiska madaxweynayaasha dunida aadka loo ilaaliyo. Xasan Watara marka uu baxayo waxaa raaca baabuurta gaashaaman iyo mootooyinka iyo ilaalo aad u tiro badan. sidoo kale madaxda kale waxa uu kaga duwan yahay Xasan Watara baabuurkiisu ilaaladiisa ayaa geesaha ka qabsata kuwaasoo indhahooda ku eega wadooyinka iyo meelaha kale oo ay isdhihi karaan amni xumi ayaa ka imaan karta oo madaxweynaha khatar gelin karta. Baaba hogaamiyaha diinta Kaathooliga kama suulayaan dadka diimaha kala duwan haystaan in ay aaminsan yihiin in ay samaystaan hogaamiye diimeed. Al-Baba waa ninka kaliya hogaamiya diinta Kaathooliga ama Kiristaanka. dadka haysto aad u tiro badan darteed Al-Baba waxaa loo sameeyay ilaalo aad u badan, waxaana lagu tiriyaa hogaamiyaha ugu ilaalada badan caalamka. sidoo kale Al-Baba marka uu dhaqaaqayo waxaa raaca ciidamo aad u tiro badan kuwaasoo ku gaashaaman baabuurta aan xabada karin iyo mootooyinka. sidoo kale amnigiisu waxaa ka qayb qaata helikobtaro. sidoo kale 2 maalin ka hor ayaa wadada la xiraa. Al-Baba baabuurka uu isticmaalo waa baabuur laga soo maanguuriyay hogaamiyaashii hore ee Talyaaniga. naga daawanaysi waa Somali Media Action.